xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa hambaliyada ciidda la wadaagay dhammaan shucuubta muslimka ah shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo bulshada gobolka Sool ee degmada Laascaanood waxaana uu xogayuhu alle uga bariyay inuu ciidan ciideeda ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo maanta oo ay tahay maalin ciida oo maalin ummadda islaamka oo dhan ku weyna aan ummadda muslim islaamka meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda reer Somaliland gaar ahaan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood aan ugu hambalyeynaya munaasabadda ciida ee Ciidul Fitriga waxaan leeyahay hambalyo ciid mubaarak waa maalin weyn waa maalin ummadda islaamku meel kasta ay joogaan ay faraxsan yihiin wada faraxsan yihiin waa maalin ummadda islaamku ay isku dareen yihiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa in maalinteeda ilaahay ina gaarsiiyo khayr iyo barwaaqo iyo nabadgelyo ilaahay inuu gaarsiiyo waxaan u baahanahay inaan ku shukri noqono xamdiga nimcada ilaahay ina siiyey waayo waxaanu ku jirnay 30 cisho aynu soo soonnay oo ah 30 cisho ee ugu fadliga badan 12 bilood 12 bilood ee sanadka 12 bilood ee sanadka 30 cisho ee ugu fadliga badan ee ayaamaha barakeysana ee ilaahay islaamka uu ku caawiyay cid kastoo islaama ama muslima ayaynu soo soonnay waxa aynu helay raxmaadkii ilaahay raxmaadkiisa inoo shubay nabadgelyeenu ku soo soonnay nabadgelyeenu ku ciidin waxaan u baahanahay inaynu ilaahay mayna kari weynayno ilaahno alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahu waa kugu shukro kugu mahad waayo dad fara badan oo walaalaheena oo inaga mid ah oo barkeena baa waxa weeye haleeli waayay ama ay u suuro geli weyday inay bisha Ramadaan intay bilaabaan ay dhameystaan dad fara badan oo walaalaheena ama inaga mid ah ayaa raxmaadkii iyo nimcadii ilaahay waxyeello u geysteen oo iyaguna ay sababtay inay suuroob weydo inay soonkooda ay dhameystirtaan 30 cisho soon kuwa fara badan oo inaga mid ah ayaa arrimo nabadgelyo awgood ay u suuroob weyday in ay 30 cisho ay khatimaan oo dhameystirtaan ama qaxay ama dagaal ku socdo ama sida walaalaheen Falastiin oo kale waxaan u baahanahay markaa inaan ku shukri noqono nimcada ilaahay ina siiyay 30 cisho soo dhameystiranay acmaasheeda ilaahay inuu naga aqbalo raxmaadka ilaahay ina siiyay nimcadiisa in ilaahay inoo siyaadiyo dadku marka roobku da'o ama ha yaraado ama ha weynaado qofku inta badan biyowga meelaha biyuhu galaan wajicay inay ku dabaashaan dad fara badan oo yaray waaweyn bale ayaad arkaysaa marar fara badan oo ku jira qaybtoodna la leeyahay dhowto ceelashi baa laqay ama biyo ku soo raadinayoo qaaday waxaan u baahanahay in aynu ka digtoonaano waxyaabaha noocaas oo kale waxaa magaalada iyana ka jirta oo doonaya halkan inaan fariin u mariyo bulshada reer Laascaanood sidoo ogtihiinba maalmaha ciidka ama xilliyada ciidka waxaad aragtaan magaalada ku aragtaan qoryo iyo baastoolado caruuraha yaryar ay ku ciyaaraan oo loo iibiyo oo ay sitaan waxaasoo dhami ma jeclin ilmaheenu in uu wax dilo nin jecel maanta ama qof jecel ilmihiisu inuu cid wax yeelo ma jirto laakiin waa fariin khaldan waa message khaldan oo gudbaya ilmahaasi marka uu wax weeyaan maanta uu ku kacaamo qoriga iyo baastoolada caaga ee uu ku ciyaarayo maalinta ciidka iyo ayaamaha yawmal farxa ee kuuluhu ka dhacayaan indhaha iskaga ridayaan waxba kuma aha inuu kuwa kalena uu ku dhiirado oo markuu arko wax weeye ama uu helo uu qaato insha Allah ta'ala waxaan ku dadaalaynaa ciidkiisa maalinta Carafo in wax weeyaan aan magaalada lagu iibin doonin waxyaabaha yaryar ama la soo gelin doonin noocaas oo laga ilaalin doono
dhammaan goobaha ganacsiga iyo cid kastoo keentana waxaan leen arrintaasi wax kale ugu soo bedel carruurta baabuur iyo waxyaabo kale ay ku ciyaaraan laakiin baastoolad iyo qori caaga ha ugu soo bedelina ha u keenina oo ha ka iibinina ka dawlad ahaana kolley waa iska kaashan doonaa insha allahu tacaala hawl tallaabo sax ayaa laga soo saari doonaa laga qaadi doonaa ugu dambeyntii waxaan doonayaa halkan aan tacsi uga diro allah u naxariistee oday axmed cilmi oo ku magac dheer abyad oo ah runtii lafdhabarkii magaalada ama raggii magaalada wax badan u soo qabtay oo weyna waayeel ahaa oo maanta yowmul farxi xilligii salaada geeriyooday ilaahay laha oofsaday alla ilaahay ha u naxariisto dhammaan ehelka liibaan qaran warbaahinta qaranka Somaliland laasacanood.